قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم kasoo qayb galay meeshan maanta aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan ummadda iyo shacbiga Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idin kula dardaarmayaa isjacayl gacmo isqabsi walaaltinimo dadku wax way dhex maraan laakiin danihiisu ka raacdaa la iskuma mashquulo ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga dhigto ummad isku mashquulsan oo tiih ku jira tiiha Allah inaga saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala tiiha iyo walaalka ay naga saaro ilaahay naga dhigo ummad danteeda garato oo diinteeda u shaqeysa ay naga dhigo waxa weeyaan ilaahay nicmadu ina siiyay yani culimada inoo wacdin doonto oo inuu yeedhi doona insha Allah ilaahay adoon sida Sheekh Cabdiraxmaan oo kale iyo haddii culimo kale joogaan intaba ilaahay laakiin nicmadu ina siiyay aad iyo aad inuu garanaa fiican ilaahay inuu xoolo ku siiyo iyo inuu macnaha muxuu maartay caafimaad ku siiyo iyo inuu wax walba ku siiyo waxa kamid ilaahay inuu diin ku siiyo haddaynu shacbiga Soomaalida ilaahay diin buu ina siiyay maanta
يعني دجان صوماليات أو أنتي لا تجدد مسيحيين اللي وجود تجيا مجران روح كل حدومنا يا والله يا أبا مركضت كالنوع عاس إلهي النعمة داسية نعمة أنت قرتان أو تا إلهي سيا قرتان أو إلهي حقيس اللوجة إلهي اللي وش شكريو إن نعمة محوها مارت اللي حكستو أو ضدك إن قدم بيا إن قدتك إن جوري نعمة السلامة وإن سوق جالسين وإنه كده حلي إن نروح اللوجة هي ما أنت إلا إن قد حلو والنعمة الإسلام إن ما أنت إن قال إن قد حلو اللوجة بهاي هي إن ماشي نسكول لو نباها طول إيا ضد إن قدم بيا وإن سوريا إن شاء الله تعالى مولانا محمود نور أدعي الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام يا لمانتين dadkan sharafta leh xubno taageero iyo dadweyne leh ee isugu yimid maalinkan qiimaha badan iyo munaasabadan aynu ku xusuusanayno taariikhdii la aasaasay ururkan ONLF ama jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen aad baan u jeclaan lahaa inaysan maanta ahayn taariikh ee ay ahaan lahayd maalinkii aan xornimada u dabaaldegayn 36 sano ayaynu ururkan ONLF intuu jiray aynu u dabaaldegaynay maalin macnihii aasaaska laakiin waxaa iga qiimo badnaan lahayd maalinkii gobonimada aan xorownay inuu u dabaaldegayno wayna iman doontaa insha allah run ahaantii waxaa weeye halgankan ay jooxa ugu dambayso muddada macnihii hadda 36 sano socday waxaa ka horreeyey halganno kale oo fara badan oo silsilad ahaa oo taxano ahaa halganka dadkeenu uu ku jiro waxaan taariikhda inta aan akhristay ama baadhis aan ku helay ama aan la taariikhdaba ku hayo wuxuu bilowday 1891 oo ahayd markii xukuumaddii Abasinia ee uu Menelik madaxda ka ahaa ama amxaaradu hogaaminaysay Abasinia ay goosatay in dhulkeenna ay ku soo fido oo taariikhda intaad la socotaan waxaad maqli jirteen halganno weerara oo macnaheedu duulaanno tooxatooyin oo dadkeena lagu soo qaadi jiray iyadoosan markaa wax urur ah siyaasadeed oo halgamayaa jirin dadku isaga markaa isdifaaci jiray intay duulaan soo qaadaan iyaga oo maartay dameero iyo baqlo wata ayay meel allaale meeshii shacbigeenu degan yahay ay ku duulaan ku soo qaadi jireen xoolahana ka dhici jireen carruurta yaryarna wixii ay qabtaan ay la tegi jireen dadka waaweynna way leyn jireen marka taa halganka taariikhdaas ayuu bilowday sida rasmiga ah taas waxaa ku xigay halgamo waxaa jira ururo ahaa oo iyagoo abaabulan oo hoggaan leh oo dagaalamaya bilowday kuwaana waxaa ugu horreeyey dagaal 1941 dagaalkii labaad ee adduunka markuu bilowday uu Talyaanigu weerarka ku qaaday maaragtay Ethiopia iyo Geeska Afrika oo dhan uu mar qabsaday meesha u dambeysay ee Soomaaliya Geeska Afrika iyo dhulka Ethiopia loo yaqaan oo dhan gacantiisa gashay dagaalka cadan iyo dhinacan Afrika iyo isna halkaas ku jabay oo kaga baxay meesha Talyaanigii markii uu jabayay Ethiopia oo Haile Selassie madax ka yahay way tabar dareed kadib tabardarrida darteed wuxuu yidhi Ingiriisku ana dhulka Soomaaliyeed idin haynaya ee idinku Ethiopia kala xalliya oo maartay xasiliya Talyaanigu intii markaa uu haystay markaa Ingiriisku intuu maamulayay ee dhulkeena kala wareegay maartay Talyaanigi xabashidiina aysan imanin kacdoon baa bilowday kacdoon la yiraahdo the Gary Uprising oo 1941 ilaa iyo 45 soo gaaray dagaalkaas oo nin la yiraahdo Garaad Cali oo hogaaminayo oo garaad ahaa dagaalkaasi dagaal abaabulan buu ahaa walow wax saxaafad iyo wax taariikh oo macnaheedu dadkaas markaa Soomaaliyeed oo shaqeynayso adduunka ka jirta aysan jirin oo wax ka qortaa haddana waxyaabihii ay ka qoreen dawladihii reer galbeedka markaa maartay Geeska Afrika joogay ninkaas wuxuu dawcay inuu xabashi isa soo gelin dhulkeena maadaama Ingiriisku markaa uu joogay ilaa Harar inuu weeraro uu bilaabay jigjiga weerarkii uu ka qaaday amxaarana markaa dhulkeena ma joogin Harar markii 13 kilomitir u jirsadeen ayay rasaastii ka go'day ciidankii rasaastii markay ka go'day markaa
amxaaro oo soo kicisay markaa qowmiyaddii oromada markaa deegaanka ka dhoweyd oo tiri idinka idin qabsanaysaa soomaalidu isdifaaca annagaa hub idin siinayna aduu si kastaba ha noqotee halgankaasi halkaas ayuu ku hankaagay oo uu ku joogsaday halgankaas muddo yar kadib 1960 ayay markaa waxaa bilowday xornimadii soomaalidii jamhuuriyaddii maaragtay xorta ahay hadda xorta ah kaas intuusan bilaaban waa in yar baan dhexda ka bilowday ingiriisku intuusan ka bixin dhulkeenna wuxuu isku dayey inuu soomaali israaciyo ileen amxaaro iyo Haile Selassie idinka anaa dhulkan maamulaya buu gacanta ku haynaya intuu gacanta ku hayay wuxuu damcay intuusan amxaaro ku wareejinin inuu soomaali israaciyo oo jamhuuriyaddii markaa aan weli xornimada qaadanin oo Hargeysa iyo waqooyi ugu horeeyeen koonfurtana markaa aysan xornimadii qaadanin in maartay israaciyo damcay taas oo u suurtageli weeday oo dawladihii dagaalkii labaad adduunka ku guuleystay ahayd Mareykanka iyo Ruushka ayaa yiri maxariyad ingiriis oo geeska Afrika ka sameysata doonaysaa ka bax ingiriisku markaas ka tababaraa dagaalkii labaad adduunka oo Jarmalku aad ugu weeqay ciidamadiisina Afrika adduunka kala joogay ka baxayeen mar haddii loo hanjabay isla markaana soo rabay hirgeli weeday inkastoo isagu dhibka uu markii hore bilaabay oo ku wareejiyay amxaarada uu yiri dagaalkii uu ku qaadayay Suudaan haddaad u taageertaan dhulka Soomaalida ayaa idinku wareejinaya oo iyadana taariikhda mid yar oo dhexdoon ka booday 1897 bay ahayd markii uu ingiriisku intuu milatariga xukuumaddiisii la shiray oo Ras Buchanan markaa Haile Selassie aabihii ay maamulayeen uu yiri haddaad igu taageertaan dagaalka Suudaan oo Faransiisku oo Chad joogay uu ka cabsanayay inaan webiga Niil oo markaa ka soo galo anna gacan baan idin siinayaa oo markaas dhulka Soomaalidu degan tahayna way idinku wareejinayaa tii ayay markaa ahayd waa kala gadasho ingiriisku xaq uma laha inuu dal uusan lahayn iyo dad uusan lahayn dawlad kale oo iyo dad kale ku wareejiyo laakiin Soomaalida oo dalka ma xilligaas dawlad dad bisil lahayn oo la socon adduunka waxyaabaha ka socda la soconin iyo dawladihii reer galbeedka oo hubkooda iyo maartay siyaasadooda iyo ciidankooda isticmaalaya kadib waxay ku guuleystay ingiriisku inuu markaa Habashi iyo Amxaari iyo Abasiiniya inuu markaa uu ku wareejiyo bishii May 14keedii 1897 bay ahayd markuu ku wareejiyo dhulka taa marka haddii aan ka soo gudbo halgamadii bilowday kii hadda aan ka sheegayay Gary Abraham Garaad Cali uu hogaaminayay waxa ku xigay markii aan intaanan u gudbin taariikhda Soomaalida iyo maartay xilliga ay maartay gobonimada qaadatay aan ku soo koobo marka dhulkeena iyo halgamadii ka bilowday halgankii waxa bilowday oo kow ka noqday Soomaalidu waxay u taqaanay maartay halgii Nasrullaahi ama geeshki yaa bilowday kaasi muddo socday runtii dagaalkaasi dagaal xoog ay dadkanu isticmaalayaan hoggaan leh maamul leh gudoomiye leh oo hogaaminaya Garaad Daahir baa hogaaminayay dagaalkaasi marka dagaal shacbigeenu uu ciidanna leeyahay jamhuuriyaddii oo tabar yar oo markaa xorowdina ay jirto ayuu ku soo hagaagay kaasina muddo socday hadda kadibna uu runtii sidii la rabay uu halkii la rabay muusan gaarin ka muddo kadib waxa ku xigay dagaalkii maartay ay buuga garanaysaan intiina hadda maartay aan dhalinyarada carruurta ahayn dagaalkii 77 maartay jabhadii WSF jabhadii xoreynta Soomaaliya galbeed hogaaminaysay iyo ciidamadii qarankii Soomaaliyeed markaa barikan taarixay dagaalkana ka qayb qaatay dagaalkaasi si fiican bay ugu guuleystay Soomaali ama jabhad ha ahaato ama dawlad qaran ha ahaatee laakiin waa la inaga heliyay oo waxa inaga heliyay dawladdan Habasiiniya ama Addis Ababa xukunkeedu yahay markasta oo ay tabar leecdaba waxa u soo gurmada maartay reer galbeed maanta oo taaganahay mar hore kala tagi lahayd kala yaaci lahayd reer galbeed ba wali dhaqaalaha iyo siyaasadda gacanta ku haya oo waxa kacdoonka iyo dadka la leynaya maartay xuquuqdooda u dagaalamaya dhibaatada lama arko laakiin waxa la rabaa xukuumadda Addis Ababa inaysan kala yaacin 180 qowmiyadood iyo jarjarka ee qasabka la isugu kabkabay inaysan kala yaacin marka reer galbeed mar walbaba iyo maartay taageerada uu la garab taagan yahay mid hadda bilaabatay ma reer galbeed waxay taageerayeen dagaalkii Axmed Guray wixii fashiliyay hankaajiyay isagu ahaa dagaaladii 77
iyo kuwii ka horreeyeyba iyagay ahaayeen wixii gacan siinaya cadowgaas maaragtay usan dal iyo dad aysan lahayn ku dagaalamaya kaas waxaa ka dambeeyey dagaalkii 7/7 markii uu maaragtay sidii la rabay reer galbeed iyo Warsaw israaceen labadii bariga iyo galbeedka ahaa ay gacan iyagoo isa siinaya oo israacsan ay taageereen ay gacan siiyeen migista Haylamaryan oo markaa hogaamiyihii maaragtay Ethiopia ahaa waxay noqotay in markaa halgankii oo boqolkiiba 95 dhulkii markii la xoreeyay boqolkiiba 95 in markaa ay reer galbeed oo siyaasadana ku taageeraya iyo Ruush iyo Cuba iyo reer galbeedka oo ciidan iyo dhaqaale iyo hub ku taageeraya inay markaa ay ka guuleysteen oo ciidamadii gobonimada ee Soomaali galbeed iyo ciidankii qaranka Soomaaliya xoogga dalka ay halkaas ay runtii ay guushoodii ku hankaatay halganku ma joogsan waa isku qori dhiib ku socday kaasi waxaa markaa bilowday jabhaddii ONLF ama jabhaddii wadaniga xoreynta ogaadeen kaasi wuxuu noqday maadaama dagaalkii aynan ku guuleysan waayo jabhadda WSLF raggii hogaaminayay ee ku jiray ee dagaalamayay unba haddana u xogsiibtay magacan ONLF markay arkeen in siyaasadda caalamka laga soo horjeedo markii reer galbeed iyo bari iyo xataa dowladda islaamka ahayd xataa laga dhaadhiciyay in Soomaali ay doonayso dhul aysan lahayn waayo markii la rabo in cadow ama dadkaada dad maartay la taageero gacan la siiyo ama Soomaalidu wax ku maamaadaa ninka waxaad u qabataa dad weydo meel walba meegaag baa madax looga bixiyaa miyay oran jirtay markii la rabo in la taageero marmarsiinyaa loo helaya Soomaali iyada dhulbaas bay rabtaa iyo kan iyo waxa meel walba siyaasadda caalamka ayaa noqotay in inaga hor timaado Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo halgankii WSLF taasi marka waxay keentay in rag dhalinyarana ah odayaan ah inay intay tashadaan yiraahdo war magacan WSLF aan bedelo halgankiina si kale aynu u xubsiibano si aynu u bilowno halgan kale oo halkiisii uusan uga sii maartay usan u joogsanin taasi marka ururkii maanta sanad gudihiisii 36 u dabaaldegayno halkan u joogno ayaa halgankii markaa bilaabay qulturkii calankii qaaday kiina weli wuu socdaa waan ognahay taariikhaha uu soo maray 36 sano iyo baad ogtihiin hadda maartaan hal inaan idinku taariikheeyo iyo dhacdooyinkii dhacay iyo dagaaladii dhacay iyo wixii aynu soo maray waad wada garanaysaan inta maartay aan caruurta ahayn kaasi markaa wuxuu keenay markii halgankii adigu iyada lafteedu isbedelaho ka dhacay dalka Ethiopia oo xukunkii aad macangiga ahay TPLF hogaaminaysay 27 sano markuu meeshii ka baxay waxaa timid qolo kale oo maartay yar socda